subax wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan u diyaar garooba warbixinadeena subaxnimo inaad ka daawataan channelkeena YouTube-ka sirta wararka waa subaxnimo Talaado taariikhduna waxay ku beegantahay 28 Febraayo 2023 wararkeena saaxiibayaal qodobada aad ku daawan doontaan waxa qaybka Soomaaliland oo mar kale dagaal saddex jiha ah saaka ku soo qaaday magaalada Laascaanood iyo xogii ugu dambeeyay dagaalkii ugu cuslaa oo saaka ka soconaya halkaasi sidoo kale waxa qaybka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo xalay amarkii ugu dambeeyay bixiyay ciidamadii ugu badnaa oo ka kooban booliis asluub iyo military iyo ciidanka badda oo mar kale Soomaaliland ay ugu soo daabushay aaga Laascaanood ciidamadii ugu faraha badnaa oo laga keenay aaga Burco iyo ciidankaas oo ku soo biiray dagaalka Laascaanood iyo macluumaadkii ugu dambeeyay aan ku soo gudbin doonaa dagaalka Laascaanood oo Soomaaliland hoos u dhigay rajadeeda ah si maamulida gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyo faahfaahin arrimahan ku saabsan ayaa qayb ka ah waxa kale oo qaybka ciidamada isugu jira nisaax iyo booliiska ayaa xabsiga la dhigay waana ciidamadii xalay ku dagaalamay isgoyska Siinaa ee Muqdisho iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo amarkani bixiyay iyo gudoomiye Madaane oo ku dhiso faahfaahin ka bixinaya sababta ciidamadaasi loo xiray macluumaadkan oo kula wadaagi doonaa Al-Shabaab ayaa shaacisay in baaris ay ku hayso sarkaalka ka ganacsada daroogada ee keena magaalada Muqdisho xilli kooxda Al-Shabaab saakidii hore qaraxyo ay ku weerareen sandaqad lagu iibinayo waxyaabaha draagiska oo ku soo gudbin doonaa sidoo kale waxa qaybka wararkii ugu dambeeyay xiisada ka taagan Doolow iyo xildhibaan xog cusub ka bixiyay xiisadaas iyo waxay salka ku hayso xaaladda degmada Baraabe ee Shabeellaha Hoose ayaan eegi doonaa xog ku saabsan xiisada ka taagan degmada Baraabe iyo faahfaahinta xogtaasna qayb ay ka tahay dhammaan qodobadan iyo kuwa kale aan ku faahfaahin doonaa wararkeena saakay qayb ka noqon daawadayaasheena ku xiray channelkeena YouTube-ka ee sirta wararka calaamada guduudan ee ku muuqata subscribe noo dhig gambalelkana taabo nagu soo bir waxay ka dhigan tahay inaad qayb ka noqoto daawadayaasheena sida maalinlaha ah ugu xiran channelkeena YouTube-ka ee sirta wararka subax wanaagsan soo dhawaada saaxiibayaal iyo waliba sidoo kale channelkeena YouTube-ka ee Dabaasha TV ayaad nagala socotaan aan ku bilaabo xaaladda Laascaanood waxaan marka hore si guud u dulmari doonaa wararkii ugu dambeeyay macluumaadka Laascaanood ciidamo badan oo hor leh oo gurmad ah ayay Soomaaliland xalay geysay saldhigga military ee Gooja Cadde halkaas ay rabto Soomaaliland in awood military ay ku difaacato saakise dagaal saddex jiha ayaa mar kale ka soconaya duleedka Laascaanood iyo Soomaaliland oo markan u muuqata inay lumin doonto gobolka Sool xaqiiqooyinkii ka soo kordhay ayaan ku soo koobi doonaa ciidanka Soomaaliland ayaa saaka wararkan helil waxay sheegeen in mar kale ay qaadeen weerar saddex jiha ah waxayna ku qaadeen ciidamada deegaanka ACC ee kuwa daraawiishta loo yaqaano dagaalka ayaana ka soconaya duleedka magaalada Laascaanood meelaha qaar dagaalka Laascaanood wuxuu u jiraa 20 kilomitir xogaga difaaca shacabka reer Laascaanood ayaa waxa la sheegay inay ka jawaabeen weerarka saaka lagu soo qaaday isla markaana iska difaacayaan duulaanka culus ee ciidanka ciidamo badan oo gurmad oo xalay soo gaaray saldhigga military ee Gooja Cadde ay ku leeyihiin ciidanka Soomaaliland ayaa la sheegay inay iskala qaybiyeen oo saddex jiho oo galbeedka magaaladu ay qayb ka tahay iyo bariga oo dagaalku ka soconayo ciidanka Soomaaliland ayaa laga qabsaday Laascaanood iyo guud ahaanba gobolka Sool sida hadda muuqato taliska military Gooja Cadde ayaana la sheegay in xal la siiyay amar kale ah inay dib ugu noqdaan goobihii ay soo baneeyeen ee fariisimaha ah ciidamada daraawiishta ACC ayaa dhankooda la sheegay inay gaareen dhulka buuraha ah oo ku hareeraysan saldhigga military Gooja Cadde oo shalay ay hareerayeen tani oo keeni karta in gurmadka ciidanka Soomaaliland dhexda loo galo iyo sidoo kale ciidanku xitaa ay go'doon ay galaan marka laga reebo dagaalka saaki soconaya dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi ayaa wada abaabul ciidan tan iyo markii ciidankiisa qaybo kamid ah loogu soo adkaaday magaalada Laascaanood xerada military ee ciidamada badda kuwa asluubta booliiska ayaa la sheegay in loo soo daabulay xalay waxa la soo qaaday qaybtii ugu dambeysay oo ka kooban ciidamada booliiska asluubta iyo kuwa badda ayadoo awood kasta Soomaaliland leedahay hadda isku geysay difaacashada saldhigga Gooja Cadde oo saldhigga ugu weyn ee militariga Soomaaliland ay ku leeyihiin agaarka Laascaanood ama duleedka magaalada madaxweyne Muuse Biixi ayaa amray in ciidankiisa aysan ka soo bixi karin saldhiggaasi oo ay difaacdaan Laascaanoodna ay sii joogaan dagaalkan culus oo galay toddobaadkii afraad sida hadda muuqata wuxuu galaaftay nolosha dad aad u badan taliyaha qaybta 12aad ee Soomaaliland ninka lagu magacaabo General Faisal Cabdi Bootaan ayaa ka soo muuqday warbaahinta isagoo ka soo cararay
aagii uu ka dagaalamayay wuxuuse sheegay in dagaalka ay kusoo biireen ciidamo aan ahayn kuwa deegaanka ay ku jiraan Puntland iyo dhinacyo kale sida uu qiray. Somaliland ayaa hadda muujinaysa in dagaalka Laascaanood aysan ku koobnayn dadka deegaanka kaliya ay jiraan dhinacyo kale oo caawinaya marka laga soo tago dadka deegaanka ay iska diidan maamulka Somaliland iyo inay hoos joogaan. haddaba dagaalka Somaliland waa dagaalka ka socda Laascaanood. Somaliland waxay hadda u muuqataa inay luminayso magaalada Laascaanood ama si guud marka loo eego gobolka Sool marka la fiiriyo khasaaraha la mahadin ee Somaliland ay la kulmayso. Somaliland khasaaro dhowr wajile ayay kala soo laabatay dagaalka Laascaanood oo 3 toddobaad ugu dambeysay soconayay. dadka deegaanka ayaa muujiyay cudud ciidan oo xoog badan intii la filayay in ka badan iyadoo taasi u muuqato in midnimada dadka reer Sool ay u muuqato mid ay rabaan 20 sano kadib inay soo cishtaan maamulka Laascaanood. in magaalo aad maamulaysa in ka badan 20 sano hadda si fudud gacantaada inay ugu baxdo waxay dad badan u arkaan qiimeynta Somaliland hoos u sii dhacaysa. mar walba way adag tahay in laga adkaado kacdoon shacab oo kacay oo hubkii qaatay sida ay qabaan dad badan oo qubaro ah. sabtidii ayay toddobaadkan waxa markii dagaalkii ugu xoogganaa u dhacay uguna khasaaraha badnaa Somaliland waxay sabtidii lumisay deegaano muhiim ah. waxay kaloo Somaliland ku qasbanaatay inay iskaga soo baxdo saldhigyo waaweyn oo ay ka maamulayso Laascaanood. in deegaano gacantaada ku jira ka baxdo waxay dad badan ku micnayaan luminta magaalooyin kale oo hor leh. waxaana muuqata xitaa in ciidanka deegaanka in iskaga hari doonin xitaa haddii Somaliland ay ka wada baxaan gobolka Sool oo dhan. inaad lumiso magaalada Laascaanood adigoo raba inaad xukunto waxay tani dadka qaar ku qeexaynaysaa jab weyn oo soo gaaray maamulka Somaliland. waxaana sidoo kale xitaa lagu qiimeynayaa Somaliland si maamulidooda gobolka Sool iyo waliba deegaanada kale. waxaa sidoo kale Somaliland mushkilada kale hadda wajahayso waxa qayb ka in loo diiwaan geliyo xasuuq dadweyne. durba waxaa bilaabatay dacwado la xiriira in xasuuq iyo ku tagrifal awoodeed madaxweyne Muuse Biixi diiwaanka ugu jira. in ka badan 23 maalmood oo dagaal oo Laascaanood ah diiwaanka hadda waxa la geliyay xasuuq. tanina waxay keeni kartaa inay dhaawacanto qorshihii Somaliland ee ahaa inay hesho madax banaani Soomaaliya inteeda kale. ciidanka gooni goosadka ayaa hadda u muuqanaya inuu dhaawac weyn soo gaaray maadaama dagaal qaatay 23 maalmood in ka badan oo Laascaanood ka soconayay diiwaankan xasuuqa loo geliyay oo dad rayda la xasuuqay. tani waxay keeni kartaa inay rajada ay ceelar ku sii dhacdo Somaliland inay noqoto dal madax banaan. dhimasho dhaawac burbur magaalo ayaa ah waxa ugu weyn diiwaanka hadda Laascaanood la geliyay. madaxweyne Muuse Biixi ayaa diiday aragti iyo talooyin loo soo jeediyay dagaalka ka hor. wuxuuna ahaa in ciidankiisu kala baxo magaalada Laascaanood wixii wada hadalada la isugu yimaado. laakiin hadda Muuse asagoo intaas ka jilicsan ayay qubarada qaar ay qabaan inuu ku qasbanaan doono in ciidankiisa uu kala baxo. haddaba daawadayaal xaaladda Laascaanood dagaal ayaa socda wuxuu ku soo kordhaa wararkeena kale ayaan ku faahfaahin doonaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo. dhinaca kale ciidamo isugu jira booliis iyo waliba sidoo kale nisa oo xalay ku dagaalamay Muqdisho ayaa xabsiga la dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir Madaale ayaa amarkaasi bixiyay. ciidamo kamid ah kuwa nisa iyo kuwa booliiska oo xalay ku dagaalamay isgoyska Siinaa ee magaalada Muqdisho ayaa hubkii laga dhigay waa la xiray kadib markii dagaal ay ku lug yeesheen oo qaatay dhimasho iyo dhaawac. gudoomiyaha gobolka duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa tagay isgoyska Siinaa asagoo uu la socdo taliyaha booliiska iyo kan nisa ee gobolka. wuxuuna sheegay in la xiray dhammaan ciidamadii ku sugnaa isgoyska Siinaa baaritaan lagu wado oo la baarayo wixii halkaasi ka dhacay. ciidanka ayaa lagu xiray xarunta dambi baarista ee CID iyadoo lagu qaadi doono dambiyada ay galeen sida uu sheegay duqa Muqdisho. kadib markii isku horimaad ay la galeen ciidamo ilaalu ahaa gudoomiyaha degmada Yaaqshiid oo diiday in halkaas uu ka gudbo oo loo diiday in halkaas ka gudbaasay gudoomiyaha ay awood ciidan isticmaaleen. isku horimaadka ayaa waxa ku dhintay dad shacab ah oo ilaa 7 qof ah waxaana ku dhaawacmay tiro intaas ka badan. gudoomiyaha degmada Yaaqshiid qodiisa wuxuu ku jira dadkii ku dhaawacmay weerarkii xalay. xaaladda amniga ee caasimadda Muqdisho ayaa u muuqatay mid sii xumaanaysa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaana ciidamada ammaanku ay qayb ka noqdeen isku horimaadyada iyo shaqooyinka caasimadda ka dhacaya. duqa Muqdisho wuxuu sheegay in xabsiga la dhigay oo la baarayo.
dhinaca kale al-shabaab ayaa shaacisay inay baarayso sarkaal ay ka ganacsada daraagiska xilli saaki qaraxyo ay ku weerareen sandaqad yar oo lagu iibiyo daraagiska oo ku taal isgoyska Bakaaraha ee magaalada Muqdisho. kooxda al-shabaab ayaa war ka soo saartay howlgallada maleeshiyada ay ka wada caasimadda Soomaaliya Muqdisho ee ka dhanka daroogada ciyaal weerarada oo caasimadda ka bilowday. kooxda ayaa sheegtay in baaritaan ay ku wado goobaha lagu keediyo daraagiska noocyadiisa kala duwan oo ay ku og tahay saraakiil ka tirsan ciidanka militariga dowladda Soomaaliya ay sheegtay in yihiin kuwa ugu waaweyn ee ka ganacsada daraagiska waliba saraakiil militari ah oo dowladda Soomaaliya saameyn weyn ku leh. sarkaalkan waxay sheegtay inuu goob weyn oo lagu iibiyo laguna keediyo daraagiska noocyadiisa kala duwan oo ku leeyahay magaalada Muqdisho gaar ahaan waliba halka loo yaqaan X Control Afgoye oo ay kooxda xogtan yeeshay. kooxda sidoo kale waxay sheegtay in qarax ay ku xirtay goobahaas oo dhan oo sarkaalkaas uu lahaa gabi ahaanba la burburin doono goob walba oo daraagis ku jiro. waxaana kooxdu sidoo kale ay sheegtay in magaca daraagiska ay baabi'in doonto. sarkaalkan kooxdu ay sheegtay inuu yahay military oo dowladda diiwaan gashan oo ku jira oo ka ganacsada ganacsiga daraagiska iyo magaciisa ku sheegtay Xasan Kaafi. ninkan oo ay kooxda al-shabaab sheegtay inay leeyihiin dhowr goobood oo ka ganacsada daraagiska. al-shabaab ayaa dhawaan ku dhawaaqday howlgal noociisu uu yahay mid cusub ay ku baagsan doonto kooxda ka ganacsata maandooriyaha ciyaal weerarada oo ay ka bilowday magaalada Muqdisho. waxaana tani ay cabsi xoog leh ku abuurtay meel walba oo daraagis laga isticmaalo. xalay ayay markii xubno ka mid ah kooxda al-shabaab howlgal qorsheysan ay ka sameeyeen isgoyska Fagax oo ay dileen 2 dhalinyaro ah, 3na ay dhaawaceen. xubno ka mid ah booliiska ayaana baaritaan wada. saaki isgoyska Bakaaraha ee magaalada Muqdisho bam ayay ku xireen sandaqad yar oo lagu iibinayo daraagiska. waxaana la soo warinayaa in 11kii subaxnimo bamkaas uu qarxay. lama hubo khasaaraha uu geystay, laakiin daraag waxa la sheegay goobta qarxu ka dhacay goob lagu iibinayo daraagiska. qabaha ugu dambeeyay wararkeena soo gaarnay ee wararkii ugu dambeeyay xiisada ka taagan Doolow iyo xildhibaan oo baarlamaanka Soomaaliya ah oo xog cusub ka bixiyeen ku soo gudbin doona. xildhibaan Maxamuud Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka lagana soo doorto gobolka Soomaaliya ayaa walwal xog leh ka muujiyay dilkii ugu dambeeyay ee ka dhacay degmadaasi. shacabka ku dhaqan degmada Doolow ayaa uu sheegay inay ka gadoodsiin qarax miino oo 18kii bishan lagu dilay Kabtan Maxamed Aweys oo ah taliyihii ururka 8aad qaybta 43aad ee xoogga dalka Soomaaliya iyo dilka 23kii bishan degmadaasi lagu geystay darawal mooto bajaaj la ahaa iyo dil kale oo loo geystay sarkaal muhiim u ah. dhammaan xiisadahan ayaa ah mid xoogan. waxaana xalay idin kula wadaagnay warkeena in Doolow uu ku xaniban yahay gudoomiyaha maxkamadda ciidanka. darawalka sidoo kale waxa jira darawal kale oo la dilay xildhibaan Maxamed Maxamuud Maxamed oo ayaa nasiib darro ku tilmaamay iska hor imaadida dadka ku dhintan. xildhibaankan ayaa gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad Xasan Cali Nuur Shuute sabtidii tagay degmadaasi oo doonayay inuu baaris ku sameeyo. wuxuu soo sheegay in baarisiisa ay noqoto mid hal dhinac ah. wuxuuna sarkaalkan uu sheegay in waxa ka jira ay tahay mid u baahan dowladda dhexe in il gaar ah ku egto. xildhibaanka ayaa muujiyay in mas'uuliyiinta gobolka ay tageen aanay ahayn kuwa si cadaalad ah u eegaya wixii halkaasi ka dhacay. wuxuu sheegay in loo baahan in si dhab ah loo baaro kiisaska iyo dilalka cidda ku lugta leh iyo waxa halkaasi ka dhacay. xildhibaanka ayaa sheegay in waxa dhacay oo dhan ay yihiin kuwa si qaas ah loo soo abaabulay. garoonka diyaaradaha ee Doolow waxa gacanta ku hay ciidanka Itoobiya oo diiday xitaa saraakiisha qaar inay ka baxaan. warbixinadan ayaan ku soo koobaynaa saaxiibayaal warkeenii subaxnimo xaaladda Laascaanood wixii kale ku soo kordha wararkeena kale ayaan ku faahfaahin doonaa hadduu ila raali ka noqdo. subax wanaagsan, nabadgelyo.